muddo 6 sano ah ayay daba socdeen kiiskan xatooyada ah oo lagu dhacay hanti dhan 3.5 bilyan oo dollar laakiin hal telefoon oo booliska loo soo diray ayaa u fududeeyay qabashada tuugii dhacay lacagtaas iyo xalinta kiiskan soo jiitamaya 6 sano mid kamid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee lagu jabsaday cryptocurrency hanti gaarayso 3.5 bilyan oo dollar oo bitcoin ah 13 September 2019 nin lagu magacaabo Jimmy Jong ayaa wuxuu wacay emergency call 911 wuxuu booliska u sheegay in la dhacay oo gurigiisa laga jabsaday lacag gaarayso 400,000 oo dollar lacagta intaas la eg cadadeeda in guriga lagu haysto booliska ama kaag ay ku noqotay. It was one of the biggest mysteries in crypto. This is going to be a huge case and there's a lot more money that we don't know about. Breaking overnight, nearly 100,000 bitcoins have been stolen from exchange platform Coin. magacaygu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idinleh meel walba oo joogtaan soo dhawaada muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay xalinta kiis soo jiitamaya 6 sano iyo isha dhaqaale iyo meesha uu lacagta ka keenay wiilkan yarka ah ee ku fashilmay iskuulka Jimmy gurigiisa waa guri aad u weyn oo waxa ku xiran CCTV camera alarmiyada qaylinayo hadii wax khaldan la sameeyo oo si sahlan gurigan wax loogama jabsan karo haddaba kamerooyinka CCTV ayaa waxay duubeen tuug oo guriga soo galayo lacagtana si tartiib ah ku qaadanayo su'aasha ay booliska isweydiinayaan ayaa waxay tahay kuma wiilkan yarka ah ee bilyaneerka ah xaguu dhaqaalaha intaan la ka keenay yuu yahay Jimmy Jimmy Jong noloshiisa ma ahayn arday waxbarashada ku fiican waxyaabaha ugu weyn ee ku sababay in waxbarashada naco ama wax saaxiib ah oo san sameeysan waxa kamid ah ardayda iskuulka oo mar walba ku caayi jiray cayilkiisa iyo sidoo kale inuu ahaa arday kulliyeed waxbarashada ayagoo ugu yeeri jiray una bixiyay magacyo uu dibsan jiray Jimmy wuxuu noqday qof kali socod ah oo aanan lahayn wax saaxiib ah niyadna uma usan hayn waxbarashada laakiin meesha kaliya uu xasilooni ku dareemay waqtigiisa inta ugu badan uu ku bixin jiray waa laptopkiisa wuxuu isbaray programming language waxayna u sii sahashay inuu aad u dhaxgalo nolosha tiknoolajiyada casriga 2008 ayuu si cagajiid ah kaga qalin jabiyay waxbarashada dugsiga sare laakiin wuxuu sii watay noloshiisa kombiyuutarka inuu saaxiib la yahay asagoo mar walba isbarayo cilmi cusub muddo kooban kadib Jimmy wuxuu casuumay asxaabtiisa iskuulka asagoo u qabtay xaflad aad loo soo qaban qaabiyay qarash aad u badan ku baxay qof walbana wuxuu si hadiyad ahaan u siiyay lacag dhan 10,000 oo dollar wuxuu asxaabtiisa ku qaaday private jet ama diyaarad khaas ah waxayna baashaal u aadeen Los Angeles haddaba meeshaas u fiirso wuxuu intaan u sameeyay inuu asxaabtiisa tuso inuu nolosha guul ka sameeyay maadaama waqtiga iskuulka ay ugu yeeri jireen inuu nolosha ku fashilmay wuxuuna hadda tusay inuu bilyaneer yahay lacagna uu haysto Jimmy asagoo aad u yar ayuu noqday bilyaneer laakiin lacagta intaan la eg xaguu ka keenay haddaba aan u soo noqona lacagtii laga dhacay ee uu booliska ku report gareeyay booliska waxay kiiskan u xil saareen private investigator ama dambi baare khaas ah waxa baaritaan lagu sameeyay nolosha Jimmy iyo asxaabta mar walba ka agdhow oo waqtigiisa la qaato dambi baaraha waxay ka shakisay in qof asxaabtiisa kamid ah uu tuuga yahay ama lacagtaas uu dhacay dhinaca kale booliska waxay baaritaan ku hayaan Jimmy meesha iyo isha dhaqaale oo lacagahan ka sameeyay social mediahiisa ciwaanada kala duwan macluumaadiyada bangiyada oo lacagaha ku kala wareejisto waxayna ilaa hadda ku jahwareersan yihiin meesha uu ka keenay lacagaha balaayinka dollar waxay bilaabeen inay weydiiyaan su'aalo ku saabsan dhaqaalihiisa wuxuu booliska u sheegay inuu yahay ganacsade bitcoin una maalgasho ku sameystay cryptocurrency dhinaca kale booliska waxay Jimmy ka codsadeen inay baaritaan ku sameeyaan gurigiisa waxayna u sheegeen qof asxaabtiisa kamid ah inay oga shakiyaan inuu lacagta qaatay laakiin midda uusan ogeyn Jimmy baaritaan hoose ayaa ku socdo oo waxaa la ogaanayaa meesha uu dhaqaalahan ka sameeyay dambi baarayaasha waxay soo ogaadeen Jimmy inuu yahay bitcoin billionaire laakiin su'aasha wali taagan ayaa waxay tahay sidoo ku noqday bitcoin billionaire xagaysa ka soo gashay lacagahaas uu ku gatay bitcoinka wiil yar oo ku fashilmay iskuulka waligiisna aanan meel ka soo shaqeynin wax experience ahna aanan lahayn laakiin noqday bitcoin billionaire waa su'aasha ay isweydiinayaan booliska kooxda la dagaalanta burcadka internetka ee cybercrime DEA-da iyo FBI-da ayaa waxay muddo 6 sano ah baaritaan ku hayeen jabsashadii crypto ee lagu dhacay Silk Road laakiin aanan ilaa waqtigaas wax cadeen ah loo helin Silk Road wuxuu ahaa meel la isku dhaafsado waxyaabaha sharci darrada ah sida hubka iyo daroogada waxaana wax lagu kala gadanaya bitcoin 2012 lacagaha bitcoinka ee wax lagu kala gadanayay ayaa la jabsaday waxaana la xaday 51,680 xabo oo bitcoin ah bitcoinkaas la jabsaday laguma wargelin booliska sababtoo ah waxaaba sharci darro ahaa isticmaalka iyo wax kala iibsiga Silk Road ee dark
web. sanadkii xigay 2013 waxaa xabsiga la dhigay aas-aasihii Silk Road. FBI-dan waxay hawada ka saareen webkaas waxayna sidoo kale gacanta ku dhigeen 170,000 oo Bitcoin, laakiin waxaa maqan 51,680 xabo oo Bitcoin ah. qofka hackerka ah ee jabsaday lacagtaas ilaa hadda lama aqoonsan, laakiin FBI-da waxay ka shakiyeen lacagta Bitcoin-ka ee laga xaday Silk Road iyo Jimmy inuu xiriir ka dhaxeeyo. guriga Jimmy ee uu baaritaanka ka socday ayaa waxaa imaaday FBI-da iyo kooxda cybercrime, laakiin Jimmy wuxuu u haystaa in lacagtii 400,000 ee laga dhacay la soo ogaaday ama tuugi la soo helay. waxay weydiiyeen isha dhaqaale oo ka sameeyay lacagaha Bitcoin-ka. Jimmy wuxuu FBI-da tusay mining machine ama mashiinada lagu soo saaro Bitcoin-ka, laakiin isla markiiba waxay ogaadeen laba mashiin oo sidaan u yaryar inaysan awood u lahayn inay sameeyaan dhaqaalaha billion-ka ah ee uu Jimmy haysto. waxay ka qaadeen laptopkiisa waxayna copy garaysteen Bitcoin addresskiisa. waxay soo ogaadeen addresskaas inuu ka mid yahay kuwa lagu isticmaalay Silk Road. markaas ayay ogaadeen inuu lug ku leeyahay xatooyada Bitcoin-ka. guriga ayay baaritaan ku sameeyeen ayagoo fatishaya meel walbo raadinayana cadeen. ugu dambeyntiina waxay heleen gasac sariiqda hoosteeda ku jiro. waxay gasacaas ka dhex heleen cheap wallet Bitcoin ah, waxaana cheapkaas ku dhex jiray 51,000 oo Bitcoin oo u dhiganto 3.5 bilyan oo dollar. meeshaas ayayna ku ogaadeen inuu yahay Jimmy qofka dhacay Bitcoin-kaas. Jimmy hunguri xumo ayaa qaaday oo isagoo raadinaya 400,000 oo laga dhacay ayuu isku soo jiiday dhibaatadan. sanadkan ayay maxkamadda ku xukuntay xabsi. jabsashadii ugu weyneed taariikhda ee cryptocurrency inuu dhacay 3.5 bilyan oo dollar oo Bitcoin ah. haddii uusan 911 wici lahayn waxaa suurtagal ahaan lahayd inuu bilyaneerkiisa sii ahaado. muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow, waqtigaagana waad ku mahadsan tahay.